Soomaaliya ayaa maanta u dabaaldegayso 57 guuradii ka soo wareegatay markii gobolada koonfureed ee xornimada qaateen sidoo kalena ay israaceen labada gobol. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay munaasabada lagu dabaaldegay 57 guurada ka soo wareegatay xornimada Muqdisho lagu qabtay ka hadlay wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay mar isu imaan doonto. Wuxuu dhinaca kale sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in ay dib u bilowdo wada hadaladii u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste. munaasabadan oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda, maamulka gobolka Banaadir, ururada bulshada rayidka, haweenka iyo dhalinyarada magaalada Muqdisho. waxaana khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu soo hadal qaaday Somaliland, sheegayna in dawladdiisu ay sii wadi doonto wada hadaladii labada dhinac u dhaxeeyay. Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya mar ay noqotaba midoobi doonto, isagoo hadalkaasina tusaale ahaan uga soo qaatay hadal uu horey u jeediyay Allah u naxariiste Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya, madaxweynena ka soo noqday Somaliland. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliyeed, oo hadalladii ugu dambeeyay uu yiri oo ay ka mid ahayd waa duuban tahay Soomaaliya kalama maaranto maray tahayna way ku imaan rajadaas iyo halkaas waa inaan ka qabayno. dadka walaalaheena Somaliland waxaan u sheegaynaa dhalinyaradooda, dumarkooda, culumadooda, xuqaashooda waxaan u sheegaynaa kalama maaranno waa ay ku imaanaynaa. waxaana ballan naga ah inaan soo celino wadahadaladii si ummadda Soomaaliyeed ee mar kale u midowdo. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ka warbixiyay qiimaha ay leedahay xuska maalinta 1 Luuliyo oo uu sheegay in halgan adag loo soo maray. walaalayaal waxaan u dabaaldegaynaa caawa 57 guuradii markii ay dhalatay jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo hore. 1 Luuliyo 1960 waxay ahayd dhacdo aad u weyn oo taariikhi ah oo dib loogu midoobay ay u midoobeen labada gobol ee Soomaaliyeed oo midna Ingiriis gumaysanayay midna Talyaani. waxay ahayd guushii ugu weyn ee ummadda Soomaaliyeed ay gaarto, taas oo xaqiiqiyan ka dhalatay halgan waqti dheer soo socday oo ummad Soomaaliyeed oo rag iyo dumar bale ay naftoodii iyo maalkoodii ay u hureen. madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kala qiray in midhihii ka dhashay xornimada ay ku yimaadeen dayac iyo burbur, taasoo sababtay in lagu hungoobo horumarkii ay shacabka Soomaaliyeed higsanayeen. midhihii halkankaas lagu keenay dowladnimada iyo dowladnimada waxay ahayd in laga ilaaliyo dayac iyo burbur. hase ahaatee hoggaan xumo, talaf xumo iyo dagaal sokeeye qarannimadii iyo dowladnimada Soomaaliyeed dhulka ayay runtii nooga dhacday. kadibna dhibaato iyo sida iyo waxyaalihii aan soo marnay oo aan halka lagu koobi karin ayaan mutaysanay. heer kasta oo dalku uu soo maray waxay saamaysay qof, qoys, qolo iyo qaranba way saamaysay. hase ahaatee dadaal badan oo la galay caalamkuna gacan ugu siiyey maanta 1 Luuliyo 2019 waxaan joognaa inaan u dabaaldegayno 57 guuradii dalashadii jamhuuriyaddeena. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay jiraan waxyaabo badan oo curyaamiyay guulaha ay Soomaaliya ku taamayso, kuwaasoo uu tilmaamay inay ugu horeeyaan argagixisada. waxaana uu dhinaca kale muujiyay inay jiraan fursado iyo rajo u bidhaamaysa ummadda oo loo baahan yahay in sida ay tahay looga soo dhalaalo. maanta annaga waxaan hor taagan argagixiso, waxaan hor taagan abaar, waxaan hor taagan kala qoqobnaan, waxaan hor taagan qabyaalad, waxaan hor taagan rajadeenna oo daciiftay, waxaan hor taagan hamigeenii iyo qabkeennii oo hoos u dhacay. iyadoo ay intaasina hor taagan tahay ayaa haddana waxaa muuqda iftiinka. iftiinkaasi waxa uu yahay shacabka Soomaaliyeed 75% waa dad dhalinyara oo ay da'doodu ka yar tahay 30 sano. walaalaheenii soo xoreeyey dalkana waxay ahaayeen dad dhalinyara SYL-ka oo ay ku jiraan 16 jiro. maanta waxaa noo kacay dumar Soomaaliyeed, waxaa noo kacay culumay dhalinyaro ah. maanta ayay dadka Soomaaliyeed fursadaystaan. madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka oo dhan iyo dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhido waxaa hor taagan hal su'aal. waa inaad ogaataan fursadan haddii aan uga faa'iideyn weyno ummadda Soomaaliyeed in kulligeen Ilaahay u xisaabin doono. haddii aad rabtaan in sharaftii iyo karaamadii ummadda la soo celiyo maanta ayay tahay.
gabagabadii munaasabada oo ku beegnayd 12 saqdii dhexe ayaa aqalka dawladda hoose ee magaalada Muqdisho waxa laga saaray calanka Soomaaliya waxaana cirka magaalada Muqdisho hareeyay noocyada kala duwan ee bulaleerka oo istiin la yaab lehna ku xardhay hawada sare kuwaas oo ciidamada qalabka sida ay ugu dabaaldegayeen qiimaha maalinta xornimada Soomaaliya ee 1 Luuliyo. Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.